السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيكو بلاشين أدكون وإذنكو سلامة أفكينكو سلامة أفكا شرفت لإله ونوهي بيستي أصحابي وإذن سلامة سيدايتهين وإفي عنتهين ميلكست أدونكو كنو شهين واجمع وناكسن أيا إذن ليهاي anigoo walaashin bisha September 11keeda maalin jimca ee tahay happy friday ayaan idin leeyahay anigu waa idin wanaagsanahay waa idin caafimaad qabaa waa idin wacanahay ani iyo ubadkaygaba iyo intii la dhalatay aan ka warqabo maasha Allah alxamdulillaah rabbil caalamiin I hope waxaan aad u jeclahay meel kastoo adduunka dacaladiisa aad iigu nooshiin ehelada qaraabada iyo inta magaca Soomaaliyeed aan wadaagna inaad ii wada caafimaad qabtiin insha Allah billahi kariim asxaabay inta marka laga soo gudbo anigu horta sideedaba waxaad igu taqaaniin qaybta wacyigelinta iyo waanada ma jecli afkayga inuu hadallo xun uu qabto sababtoo ay tahay wallahi alcadiim ninka maanta nool biri ma noolo adduunka waa laga tagi haddii laga tagana maxaa ku raacaya haddaa hanti haysati haddaa milyan haysati haddaa dahab haysati haddaa ugu tirada ka badan haysati haddaa adduunyo oo dhan haysati maxaa kaa raacaya markaad ka tagtid adduunka walaalayaal waxbana ma raacay wallahi waxay inoo raacay oo keli waa camalkeena iyo cibaadada aan suubsanay iyo marada karfantoona ugula duduubo bisa boodhiga raacaya naftana markaas maba joogto hawadii ku maqan tahay walaalayaal tabartanada fiiri qabriga marka sidaa noola dhigo oo qofku ugu dambeeyo uu tilaabada sidaa usii rogaaya nafta lagugu soo afuufay xayaana taa qofka shanqartiisa waa maqlaysaa ehelkaaga waa qaylinaysaa qaylidaadan cidna ma maqlaysa waa unkuu keligaa bal fiiri social mediahan soo galaynaa walaalayaal qabiil baa lacayni walaa qabiilka ma wada xumaan kara dadka ma wada xumaan karaan laba uur hooyo kasoo wada baxday baan wada xumaan karin isku aqli ahayn isku awood ahayn isku dabeecad ahayn isku fikrad ahayn imagine qabiil dhan oo magaca Soomaaliyeed ayaa afka lagu siinayaa maxaa ka dheefaysaa adigoo ma awood lahayn awooddaada intaa ay la eg tahay oo haddaa saaxata ma soo kacaysaa imisaasay kaaga tegaysaa aanan war ka haynin qabiil maxaa ka caynaysaa war hal shaqsi haddaa maagtiin shaqsiga marka caradi baaba'do intaadu wacdida waxaad oran kartaa yaa cafi qofkaas hadduu ku cafinaayana isaga ajir shaqaystay hadduu ku cafini waayana isaga muxuu ahayto raacaysaa cilaaqda laakiin qabiil dhan markaad caysid oo 100 qof ama 1000 qof oo message-kaaga ama cajaladaadi dhageysatay aad muxuu ahayto ay uurku wax kuugu qabtaan oo qabiilka ka tirsan yaa kaa cafinaayo cidna kaama cafinaysa war social mediaha aan ku jirno waxaa waaye mindi af leh wallaahi dhinaca afka leh haddaad wax ku goosatid adduunyo dhanaa jaraysaa social mediaha marka la soo galo waxaa ila wanaagsan dhinacaan afka lahayn in loo isticmaalo midadan sharpka afkeeda haddaad wax ku goosatid ama aad wax ku isticmaashid aqaradaada halkay aadaysaa bila aadanaa tahay sanku leeflaa tahay tabar ma lihid awood ma lihid walaalayaal qabiil yaan loo gafin qabiil ilaahay wuxuu noo siiyey laa tacaraf inaan isku aqoonsano aqoon inaan isku raacno intaan xigto isku jirno inaan isku aftirsano laakiin sida mindi sharp inaan isku qaadano waa laga fiican yahay especially dad waaweyn oo garaadkoodii koray oo ama ayeeye ama awowayaal ku socdo
inay midida shaarabka dhinaca shaarabka ay wax ku goostaan ma fiicno walaalayaal wallaahi run ahaanta aniga waxaan idinka waaninaya waxa weeyaan shaqsi waa la maagi karaa laakiin qabiilka ha layska daayay qabiilka ugaas buu leeyahay cirooluu leeyahay caamuu leeyahay ciyaal buu leeyahay ma fahantay qof xunuu leeyahay qof wanaagsanuu leeyahay run ahaantii intanada soomaali maxamed ku abtirsataa cid waliba qabiil bay leedahay meelayna kasoo joodaa abtirkooduna uu galaa marka haddii aad qof muxuu ahaytoo qabiila caysid dadka dhanaad dhaawaca gaarsiisay hal shaqsi dhaawaca maada gaarsiinin laakiin shaqsi haddaa ataagaraysid ase shaqsigaas ayuu ku kooban yahay ataaga aad ataagaraysay yoomal ka mid ah ayaad qofka intaad wacda waxaa ku oran kartaa ina adeerow ama ina adeeray iyo cafi dembigaasa ani adi kala galnay waxaasa ina dhex mari aan iscafinna ayaad dhihi kartaa laakiin qabiil intuu joogaa meeqa qof uu ka kooban yahay qabiil subxaan allah war qabiilada ha layska daayo war dadka social mediaha soo galaya qabiilada ha iska daayeen ay caynayaan war qabiilada ha layska daayo war qabiilada maxay galeen sida xabadii oo kale in laisu adeegsado war soomaaliyay see wax ku wadiin ani waaba yaabanahay see soomaaliya ay wax ku wadiin asxaabteeda qaaliga qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo adduunka dacaladiisa aad kaga nooshihiin wallaahi intuu codkayga soo gaara ha iska ilaalisa qabiilada in lagu xadgudbo sababtooy tahay ma fiicno qabiilka cid walbaa ku jirto qabiil qof walbaa ku jiro qabiilka yaana loo gafin qabiilada yaana loo gafin soomaali awalba iyadoona meel kale ahayn haddilina qabiilkii aan isku aqoonsanayno aan isku tixraacayne yaana loo gafin hal shaqsi yaana qabiil loo caynin yaana dadka loo caynin yaana dadka loo dhibaataynin asxaabay maanta maduucayga wuxuu ku saabsan yahay inaan midida dhinaceeda shaarabka ah loo isticmaalinoo dhinaca wanaagsan loo isticmaalo yaa rabbi yaa subxaan allah ilaaha inta laga baqa qafuuru raxiimka ah laga baqo labada lamitiroo liisgelinaya ha la xasuustiyay idinka tegin akhlaaqdiyay idinka tegin adabtiyay idinka tegin tarbiyadda waalidkiini ee idinku soo tarbiyadeena yay idinka tegin waxani waa adduunkana sidiisaba waa laga tagaa qof walba saacad iyo time baa ku socdo saacadda iyo timeka ha laga faa'iidaysto yaanan si xun loo isticmaalin walaalayaal yaan si xun loo isticmaalin waa anigoo ah walaashiin udgoon oo idin leh I love you so much meel kastoo adduunka dacaladiisa aad kaga nooshihiin intaa waxaan raacinayaa ilaahayow annagana ubad baari anaga dhig ilaahow ubadka aan dhalnina baari nooga dhig ilaahow hana tahluukeynin ilaahow akhlaaqda iyo tarbiyadda iyo soonka iyo salaada nagu dil waddan qurbaan joognaayo yaa rabbi yaa raxmaan yaa casiis ilaah isagaa qafuura raxiim walaalayaal ilaahay hana wada hadeeya hanana hanuuniya walaala cajaladayda maduuca maanta intaasuu ku egyahay wuxuu ku egyahay qabiilka yaan la caynin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh